واسي جورو هاي نوانا سو جورينا وانو جدنا بركعة لوجرا إن عيد هذا وكالمين يسوع بهاي ذا أما منطقنا سمافلنا ومجدنا هل كان هذا جدان وبندقوات مقالة البلدوين حرمت قبل كيران وحا مرب مركز دنبيسة سي xoogaysanaya saameynta uu wiig shabeelle ku yeelanayo bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayadoo haatan ay wili socdaan barakaca boqolaal qoys oo ka barakacaya fatahaada uu sameeyay wiig shabeelle waxaan mikrofoonka la dhax qaadnay qaar ka mid ah shacabka uu saameynta ku yeeshay wiig shabeelle waxaan taaganahay buundalabaad meeshii biyaha helada ee dhagax jibiska gali jireen runtii waa caado ahayd caado aan lahayn waa gobolkan oo lahaay fatahaada marka la yaab ma leh waa nimco ilaahay noo keeno waay hadee dadku qaarno dakaday leeyihiin oo qaarna waxay leeyihiin garoomo caalami ah annaga reer Hiiraan haddana reer Badweyn aan nahay waxaan leenahay biyo baxdaan aan leenahay marka waxaan u sheegaynaa adduunku waxaan u sheegaynaa dawladdan waan u sheegaynaa gobolkan indhaha ka qabsanayeen waa gobol 8 gobol ka dambeeyay runaantii dawladdii annaga aan mataleeyay runtii mar walba indhaha ka qabsataa waxyaabahan aan dhacaya mar walba oo dadka fatahaadta oo maaragtay kicinayo waa nimco ilaahay balse waxay naafeeyeen hooygii la seexanay musqulihii la galay rafaadkii dayaca banaanka asal loo qaxaa banaankiina hadda waxa badakan amisom iyo hadda la ku roonyahay ciidamada Itoobiyaana dadku baqida mar walba ku jirto muddo 10 sano muddo ilaa 15 sano sidaan ay ahayd oo mar walba ceel jaalaadahay oo amisom iyo ciidamada Itoobiya ee dadka walwal iyo naxtin ay ku jireen maxaa dhici doono marka waxaan baaq u dilaynaa dawladdan xakunto oo namatasho mudane Xasan Sheekh dal xoreeye dadkaagi waa dadkii dalka xoreeyay waa dad Beledweyne waa dalkii dadka xoreeyay waa waxaan leenahay in aad fiirin gaar aad u yeelato aad dib u fiiriso dadkan maatada mar walba qaxayaan magaalada Beledweyne hadee sijiidka isriixa siyaasadeed ha kulli faaqin adigu waa ka weyn tahay madaxii ugu sareeyaa tahay shacabkan waa in aad wax u amartaa labadaada furuuda wax ugu yaallo labadaada furuuda u kala qaada bas wax ugu yaala dadkan mid mudan madaxweynuhu biyihii hadda ilaahay dad wax kuma yeelin umaduna waa ka qaxday way dhax taallaa waana hadda biyahan waad u jeediinoo waa biyo soo noqnoqday oo wax ilaahay wata waaye dadka reer Beledweyne isku dayaan inay biyahan bal xeelad iyo aqli la yimaadaan almeena xataa in maxaan ku dhahaa lala yimaado qaabkii dadkan looga maxaan ku dhahaa badbaadi lahayo biyahan xal wal loogu keen lahay sanadkii 2 mar ama 3 mar la qaxo haya maxaan ku dhahaa aan isku naxariisano aan duceysano aan ilaahay barino tano maxaan ku dhahaa wax maxaan ku dhahaa ilaahay qadartiisa waayo ilaahay keenay waayo hal lagu sabro واسي جورو هاي نوانا سو جورينا وانو جدنا بركعة لوجرا إن عيد هذا وكالمين يسوع بهاي ذا أما منطقنا سمافلنا ومجدنا معمول ضد عاونا ومجدنا بلد كمعمول كيس الدواء على جور قباسيل وياهي مركز ضدك إن إسلام كهو ولا لها هل إسكالمايو هرك يا لجو حاسد نمينن باصص كلا دقة يا لجو حاسد نمينن أنا سعاون وأنا سكون حريصنا وسيد إلهي نقول حريص. سامنت بيو أي وين تاي مقالة أنت بنات ولا قبل كعي نحاها تضع تايون كنت شنين معنا اسكت جفاية قديود وقصاق الشيء أبين مدو مركا سامنت أنت عصان أقومس حافظة على قبل كعي وعوجه رأي كتيمبو لقى حجبس هذاك هي حافظة كلا لمدة ولا قصاق بركعي هذا رأي حقيهن marka sida dadka qaar hadda ay sheegaan biyaha hadda waa xaalkooda biyo kufteen oo ogyihiin oo adiga berg iyo biruux ka dambeeyay yara waan dhaafi doonaan isle biibaadi waa tana buundadii dhagaashibis aan joognaa buundadii dhagaashibis ilaahay wuxuu keenay alxamdulillah shariic khayr waa aboosto haddana biyaha buundada kama karbuudi hayaan laakiin dhinaceeda xagga talaalka xigtay ka karbuudi hayaan marka biyaha naq waa la sheego haya saameynta biyaha magaalada dhinac waa kacayeen saddex hadii loo dhigo laba waa kacday dhinaca nuur xawaad bas la degan yahay
أنتي كلا تواك عدل مركا الحمد لله إله وحو كانوا غير الحمد لله شري غير إله وحو كانوا وقوقان أحسننا إلا عدوان 6 بري 4 بري 5 بري ولا قحها مركا مقالدي واتنا بي آدي وصوبتين لكن هذا أنت نقاد بيان إلا محمود قال لي نقال لي شيء